السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي ku xiran channelkeena Wantage Media maanta waxaan kugu talagalay cashir ku saabsan sida Gmail-ka looga bedelo password-ka adigoo forget dhihin si nadiif ah oo sharci ah uga bedelan kartaa. Okay, Gmail-ka noo soo fur kadib option soo dheh kadib waxaan tagaynaa qaybta setting-ka. Markaan setting-ka soo galno kadib meeshaan hadda waxaan ku haysanaa qaybo badan. qaybta markaad waxaan galaynaa ugu horeysa follow the step to recover your Gmail. markaan soo furno meeshaan Gmail-kii oo aad ka bedeli lahayd password-ka meeshaan ku qor. hadda waxaan ku qoraa aniga Yusuf Cadde 147 kadib next dheh. haddana waxaad gelisaa password-kii horey oo aad bedeli rabtid password-ka bedeli rabtid geli. marka password-ka aan gelino waxaan ku sameynaynaa marka dib waxaan dhahaynaa next. continue sii dheh. hadda wuxuuna siin doonaa marka fursad ugu weyn oo aan password-ka aan ku bedeli karno new password. password cusub ayaan hadda inta gelinaynaa. password-ka waa idinka qarsaday dulqaata marka khiyaaray. kadib qaybta labaadna sidoo kale password confirm new password. password-kii oo aad new password-ka ahay dib mar labaad ugu celi si uu kaaga xaqiijiyo kadibna change password dheh. hadda waad ku guuleysatay inaad password-ka Gmail-kaaga aad ka bedeshid. hal wax bas ku haray inuu fariin yar kuu soo diro kadibna uu ku yiraahdo password-kaaga waan kuu bedelay xaqiiji oo checking garay inuu ku shaqeynayo ama howlgeli. hadda fariintu way kuu soo dhacday account action required. hadda marka wuxuu ku dhihi doonaa marka checking info. hadda marka waxaad dib u gelin next dheh kadibna waxaad dib u gelisaa password-kii aad soo bedeshay. password-kaaga cusub inta geli kadibna next dheh wuxuu kugu shaqeyn doonaa si nidaam ah. waa markale Wantage Media wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.